daawadayaal iyo dhegeystayaal waxaa ku soo dhawaada cashar Photoshop ah oo aan idinku bari doono sida qofka wejigiisa looga dhigi karo calanku rabo ha noqdee. Marka ugu horeysa waxaan soo furanaynaa Photoshop-keena, laakiin waxaan diyaarsaday anigoo sawirkan ku sameyn lahaa. Waa kana halkan inoo yaala aan soo furto. Sawirkan waa sawir layerskiisa ay u diyaarsan yihiin ama jarjaran. Calankaan rabnana wejiga inaan saarno, calanka Soomaaliya hoostiisa yaala asagana. Waa kana sawirkan ay indhihi noqotaan. Waa sawir jaran. Sawirkan ay indhihi qabteen baa waxaan rabaa inaan wejigiisa saaro calanka Soomaaliya. Calanka Soomaaliya intaanan saarin horta aan background u sameeyo si ay bilicdiisu u wacnaato. Open baan leeyahay. Backgrounds kaan soo qaadanaya background-ga aan show from like this oo kor keenaya. Marka kan uu saan inoo yahay sawirkeeni, waxaan leenahay Control J markaan nidhi layer cusub baa inoo sameysmay. Wuxuu noqday layer 1 iyo layer 1 code. Kadibna waxaan leenahay Control G. waxaa inoo sameysmay groupkaan magac u sameeyo. Waxaan sameynayaa mask markaan sameeyo. Marka sawirkeenaan layer 1 code-gaan waxaan rabnaa inaan wax ka bedelno. Waxaan leenahay image baan tegaynaa. Image markaan tagno adjustment waan kasii dooraneynaa. Kadibna waxaan kasii dooraneynaa black and white. Okay baan leenahay. Sawirkii baa isbedelay, laakiin background-gii waxa uu iska bedelay ma lahan, waayo background-ga haddaan soo qaatay, laakiin sawirka original-ii ah baan wataa. Wuuna kusii dhex jiraa kii original-kii. Waad arkaysaa markaan soo qaado waxaad aragtaa kii original-kii iyo sabkii aan black and white aan ku sameeyay. Haddana waan ku noqonayaa image oo mar labaad leeyahay. Adjustment haddana dooranayaa. Levels baan ku dooranayaa. Levelska meeshan koowaad waxaan ka dhiganayaa 9. meesha labaadna waxaan ka dhiganayaa 1.23. meesha saddexaadna waxaan ka dhiganayaa 2. kadibna okay baan leeyahay. Sawirkayga markuu saas inoo noqdo baan groupkayga baa waxaan u sameynayaa submask wax loo yaqaano. Waa kana halkan baa kasoo doonaya submask. Waa kana submask waa inoo sameysmay. Maadaama submask inoo ku sameysmay, waxaan rabaa sawirkayga originalkiisii hore inaan arko. Sidee loo arki karaa? Waxaan leeyahay Control Space. halkan waxaa la yiraahdaa labadan sawir background-ga background end iyo background forward baa la kala yiraahdaa. Marka kii original kii endiga ahaa oo madowga submask-geena inooga dhigay. Hadda marka waxaan u baahanahay wejigaan only intaan rabo inaan calanka Soomaaliya saaro inaan brush ku buufiyo. ila soo eega oo waxaad u fudud haddii aad si fiican u soo eegtaan. Waa kana brushkii aan doortay.
burushka markaad doortay burushka cabirkiisa size-kiisa waxaan ka dhigayaa normally khafiifna waan ka dhigayaa halkaana waxaan ka dhigayaa 80 opacity-giisa hadda ujeedaa shaqadii aan bilaabay ayaan zoom gareeyo wejiga si taxadar leh ayaad ugu buufinaysaan waxaa la rabaa tinta inaysan gaarin indhuhu aysan gelin just laakiin waxaan gelinayaa meeshaan la yiraahdo sunniyaha cadaan usoo dhex marsiinayaa iyada ka ilaalin mayo sunniyaha ujeeda waan soo dhex marsiiyey indhaha laakiin waxaa lagaa rabaa si taxadar leh inaad uga ilaalisid hadii kale sawirkaaga wuxuu noqonayaa sawir aan qurux badnayn isbedelka dhaca markaynu sawirka calanka soo gelino ayaad wada arki doontaan inuu noqdo sawirka mid lagu wada qanci karo iyo mid aan lagu wada qanci karin waan wadaa sawirkaas dhan inuu isku wada ekaado si aan looga dareemin sawirka calanka aan soo saari doono hadda waan dhameeyey soo gelinayaa kan baa soo yareysanaya sawirka calanka waa kana waa soo qaadayaa kusii dhex deyn mayo halkaasoo kusii dhex deynaya siduu layer siduu sameeyo waxaan leeyahay control A oo selection all kabacdi control C oo copy ah waa iska cancel gareynayaa marka halkaa markaa imaado halkee ku baas gareynaya waxaan ku baas gareynayaa layerkaygaan ah copy-ga waxaan leeyahay control V ku baas gareey just sawirkii aad aragtaan calanka waa kana halkan buu soo galay marka maxaa igu ogolaanaya inaan jiido toolkii ogolaanaya inaan jiido sawirkan calanka waa control T oo loo yaqaano waxaad ka helaysaa toolkan haddii aad rabtid editka waa free transform aan jiidan sawirkan ku qiyaasa wejiga sawirkayga waa kaasa waan jiiday just dhan walba uu ka leeyahay wejiga kabacdi waxaan leeyahay active ama saxdaas meesha qorata ku dhufanaya maadaama hadda wejigii in kalarka lagu buufiyey laga dareemayo waxaan u baahanahay inaan laga dareemin oo lis yiraahdo just waa original wejigan iyo calanka way isku buufsan yihiin qofkii arkaa uu ku dhaaran karay just halkan baa imaanaya layerkan ugu horeeya layerkan copy-ga ah maadaama aan dul saaray waan imaanayaa waxaan leeyahay meeshaan ah normally-ga waxaan ka dhigayaa multiply sorry sawirkan normally-ga waxaan ka dooranayaa multiply sawirkii wuxuu noqday mid ku baangareysan wejiga kabacdi waxaan sameynayaa kan marka maxaa ka dhiga magac baan u sameynayaa magaca waxa weeye maadaama ay layeriska meesha i yaala ay 3 yihiin multiply markaan ka dhigo waxaan soo hoos marinayaa
hoose layer one copygan asagana waxaan ka dhigaa normaligiisa overlay markaan ka dhigo waad aragtaan isbedel ka dhaca. kadib kan overlayerkaan ka dhigay waan kor marinayaa, kii multiply-gana waan soo hoos marinayaa. hadaad asaga laftiisa magaca ka bedelanaysaa waxaad ku qoraysaa sareeye halkaasna magaca ka bedelan kartaa. just hata waxaan u baahanahay inaan opacity iyo fiilka aan saxo labadan layer. midkaan ugu horeeya multiply-ga opacity-giisa waxaan ka dhigayaa 20 baan ka dhigayaa 80 baan ka dhigayaa. kan sareeyahana waxaan ka dhigayaa opacity-giisa 20. waxaad moodaa inuu kalarkii buluuga ahaa ka yara daciifay. kan 80 aan ku celino boqolkiisa baan u deynaynaa. hadda maxay indhihiinu qabanayaan just like in wejiga iyo calankii ay isku baangareysan yihiin. wax isbedel lagama dareemayo. just habkan intaan yartaan markii horena burushka aan ku buufinaan iskaga daayay baa wax yar laga dareemayaa, laakiin waxaan filayaa inaad wada fahanteen korsadan yarta ah. waan save gareynayaa, waxaan leeyahay inoo save garee. save as desktop-ka iska dhig. halkan waxay inoo tahay psd, marka waxaan ka dhiganaynaa jpg. calanka waa nala bixinaa soo sameyska save leh maximumkiisaan u deynayaa. okay, just bal aan eego qaabku igu save gareysmay iyo qaabka u muuqdo. isoo deji eego waa kana sawirkaan save gareeyay. hadda aan idin soo zoom gareeyo. waxaan isleeyahay waa so nice maahane, waa low nice. just wuxuu rabaa qurqurxin iyo naashnaashid, balse aniga waxay iga ahayd tusid ama tusaale kooban aad ku qanci kartaan ama aad wax ku fahmi kartaan. casharkeena xiga daawadayaal iyo dhegeystayaal waad ku mahadsan. waa Suldaan Barkad oo idin leh. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.